noorskuna wuxuu ku xiran yahay muqdisho ku xiran yahay xamar buu ku xiran yahay waxaad ogtiin jubbada dhexe afarteedii degmo say tahayba in ay shabaab kontroolo waxaad ogtiin jubbada hoose oo gobolka ana in laba degmo afmadow iyo kismaayo mooye intii kale nabadiidka gacantiisa ku jirto haddaynu u baahannahay marka Jubbaland hana qaada oo hore u socota oo gacmaha isqabsata oo qeyrkeed iska dhacaysa oo daryeesha shacabkeeda iyo da'yarteeda iyo mustaqbalkooda waa inaynu helaa in Jubbaland afartii sanaba mar loo ogolaado doorasho xor ah xalaal inay ka dhacdo oo san qof isa siinin nabadiidka laga xoreeyo muxuu ahaay warshadaha la kiciyo loo gudbo dawlad wanaag loo gudbo waxyaalaha nasiib darrada inagu haya waxa weeye maantito dawladda xiriir baan u jaray ayaa bariyahan aad caan u ahayd dawladda dhahan xiriirka u jaray xiriirka dawladda dhaha u jartay adiga iyo waxa ku dhiban shacabka kaliya hotelkan intaan deganaa laba subax ka hor waxay soo maray 38 arday oo China loo qaadayo oo safiirkii Chinese-ka iyo ciidankiisii halkan uu muxuu ahaay ugu akhrinayo wacyigelintii waxay kala kulmayaan dalkaas waxa weeye full scholarship way oo dhakhaatiir iyo injineero iyo IT iyo wax walba leh waxaan isweydiiyey maamulada waxa kaga jiray waxaan isweydiiyey talow maxaa kaga jira Jubbaland zero wax kaga jira lama waxaan rabaa xaqada inaad tiraahdo waa mitaal kaliya oo hadda waa China kaliya ka soo qaaday ka waran kuwa aadaya Malaysia ee dawladdu dirayso ka waran kuwa aadaya Khartoum aadaya Suudaan aadaya ka waran kuwa dalalka Turkiga aadaya iyo dalalka kale ee dunida aadaya maamulka inta jira ma sheegi kartaan shacabkaasow wuxuu saaxiib la yahay Kenya wuxuu saaxiib la ahaa muxuu ahaay Ethiopia iyo inay oo yiri hataa inta rabtaan soo dirsada 10 ruux looma dirin waxbarasho looma dirin maamulada ka dhan 500 baa dirsan 200 Somaliland Puntland galmudug hataa ku dar ma ii sheegi kartaan waxa maamulka ka dhigay inuu si horumarka da'yartiisa ka shaqeeyo ilaa waa mustaqbalkii da'yartu waxa la rabaa marka tiraahdo dawlad baan la dirinayaa waxa weeye adaa u baahan dawladda waxa weeye 14 milyan lacag ka badan oo budget oo leedahay horumarin ah yaa waxa looga haystaa doorasho cusub sameeya ninkii meesha ku soo baxana muxuu ahaay isagoo mas'uul ka noqday horumarinta waxaynu ogeyn sanooyin marka qofka u daneynaya kaliya anigu tayda ha ahaato iyo kursiga eegaya ee wax ka sheeyay eegayn horta waa inuu shacabka ogaado shacabka la yiraahdo Jubbaland waa inuu ogaado qofkan inuu isagu daneysanayo waliba shakhsi ay isqabteen and the expense of shakhsi dartiis in intaasoo dhib idinku gaadho waxa weeye ma mudnidin waxaan rabaa in aan ku daro wax yar wixii ka dhacay 22 August ee baalmarsanaa idiin sheegay dastuurka dalka iyo ka maamulkaba ninkii shalay sidaa lahaa maanta waa kan leh doorashooyin dalku ha galo muxuu ahaayay doorasho cod iyo hor ha la helo dastuurka ha la dhammaystiro muxuu ahaayay dawlad wanaag ka hadlaya waxay xasuusay taasi arintaas waxay xasuusay gabay Allah u naxariistay Qawaan Bulhan yiri sunna kama ansaxo nimu ka tagay faradkii saaray hadii faradkii ku saaraa uu ka tago kii weynaaba adar yeeli weydo sunna laga aqbali maayo mar waxa fiican qofku inuu is dhageysto waxa uu ku hadlayo hadalkiisa way fiican tahay inaad adiga kaliya adigoo inaad dib isugu noqoto is dhageysato waxa weeye oo rabaa inaan bulshada Jubbaland la wadaago shacabka Jubbaland doorashadii hadda ahayd waxa la galiyay kaar qabiil baa la galiyay kaar qabiil baa la isticmaalay kaarka qabiilka waxaad moodaa inuu u shaqeeyay madaxweynaha 7 sano ziyaado joogay oo colaad ah xasan nasiib darra waxay xasuusay waagii USC ay dagaalka gelisay dhalinyarada oo SNM dagaalka gelisay dhalinyarada oo SDV dagaalka gelisay SBM dhalinyaradii la dagaal geliyay qoryaha loo dhiibay ma aysan lahayn exit strategy plan B seel looga qaadaya qoryahaas laga wada hadlin maanta waxaynu maraynaa 28 sano ka bacdi in haddana dad mas'uul ah oo xil waaweyn dalka u haya
oo rajo ka qaba siyaasadeed inay haddana kaar qabiil isticmaalaan oo isugu dhiibaan dadkii incitement oo yiraahdaan muxuu ahay reebel baa nagu soo duulaya aan iska dhicina reebel waxay ahayd in laga waaytoobo oo da'yarteena aan la tusin cunfi iyo wax iska dhicin dambe haddii qofku uu u haysto baabuurta agtaala ee tiknikada cabdibile loo yaqaan ee dashiikuu saaran yahay iyo wiilasha saaran ay u noqoto wixii aynu dhihi jirnay ninkaa xoogban hortaa u xanaaqa waxa weeye nasiib darro ayay inagu tahay 30 sano ka bacdi 2020 baan maraynaa waxaan 2013 iyo 2015 ba ogolaanay in aan lala tartamin oo sida hadda uu madaxweyne Axmed u sameeyay fake muxuu ahaayay candidates niman aan waxba ka jirin iyo waxa ka jirin fake ayuu intaan u sameeyay waaga anaga raalli uga hayn laakiin 2019 raalli kama noqonayno waxaad ogaataan sida kaliya oo wax ku hirgeli karaan oo in hore uga socon karno waa sareynta sharciga sharayntiisuna qofkay ka bilaabataa iyo guriga haddaad adigu marka gacmahaaga ku ilaalin waxaad noqonaysaa kuwa South Africa oo kale oo gacmahooda cadaaladda ku raadsanaya oo guryaha dadka gubay waxa weeye maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay in lagu soo noqdo Soomaaliya 28 sano maxay inooga maqan oo waddankeena lagu haystay xuduudeena amni darro iyo waad iskhilaafsantiin heshiis ma tihiin iyo amni ma tihiin baa dalkeena lagu haystay warqoodii haradan waxaan ku fakari weynay warnabadiidkana amaan la heshiina amaan iska saarno inagu inaga dhashay isagay ajnabiga la jooga dawladaha shisheeye inagu aan wax bari jirnay ee amisom inoo ana inagu wax bari jirnay ardaydeena ahaan jirina aan iraahna waa mahadsantihiin waa isku filanay inta kadib nabadgelyo shan hore ugu socono oo badeeni iyo dhulkeeni muxuu ahay 30 sano baylahada ah ee aan furanayn aynu furano oo kastamkeena xuduudeena u xidhan weyn sida yaa mas'uulka ah muxuu ahay xuduudaha iyo badda iyo cirka dawladda dhaxa ka shacabkama maamul goboleed laga weydiin maayo yeedani ugu jirtaa dad badan baa Soomaaliyeed baad maanta arkaysaa oo aan rabin dawladda dhexe lugaha isku taagto oo xoog yeelato yeedani ugu jirtaa in ay dawladda lugaha isku taagi weydo xoog yeelan weydo waxay ugu jirtaa kuwa boolida ku nool ee dadka xoolahooda haysta kuwa waxa dadka ka dhaxeeya wali haysta kuwa kursiga ku jooga 4.5 bilyan u qalmin oo walaalkiis oo la jooga aqoon leh oo dalka iyo dadka aan fiilaha ee ka soo horeeya kuwa warloodada ah oo aan doonayba nabad iyo deganaansho kuwa ganacsatada oo ku naahay haaraanta kuwaas oo dhan kuwa diidaya dambiga in lagu soo oogo kuwa diidaya dambiga ay galeen in lagu soo oogo kuwaas ayaa doonaya in aan dalku uusan u degin uusan u yeelimin waxaan rabaa in aan ku soo koobo waxaan doonayaa in maantayto waxa igu muhiimsan oo nasuukin yaray uu yahay Soomaaliya way guulaysanaysaa Soomaaliya markay guulaystana taariikh baa la qorayaa nin walbana taariikhda waxa ka dhaxlaya ilmihiisa kuwa dhaleen iyo kuwa sii dhaleen anigu waxaan ahay gudoomiyaha xisbiga Hayes waa taqaanaan wasiir hore oo 3 wasaarad isku hayay baan ahay waxaan ahay oo kale gudoomiyaha muxuu ahay dowladda dimuqraadiyadda oo loo yaqaan JDRC Jubaland Democracy Restoration Committee oo la yagleelay June 2018 Tawfiiq Hotel waxaa la rabaa markaa oo maanta idinku yeeray waxa weeye doorasho